السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وداود لك سو دhowaada channelka Soodaal Media Network waxaa idin socodsiin doonaa anigoo ah walaalkiin Cabdalle Dawdal waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeennii aynu kaga hadlaynay dalka Kanada gaar ahaan qaababka iyo siyaabaha ugu fudud ee lagu tago wadankaasi mawduucina maanta waxaan insha Allah ku dul istaagi doonaa aynu si faahfaahsan insha Allah fidimin doonaa barnaamij la yiraahdo Federal Skilled worker program oo loogu talagalay dadka shaqaalaha ah ama shaqo taga ah ay ku tagi karaan qof kasta oo xirfad shaqo leh programkan loogu talagalay shaqaaluhu waa program aad iyo aad u fudud oo shuruudihiisu kooban yihiin marka laga reebo shuruudo dhowr ah oo adigu iska fudud aad u fudud oo ay kamid yihiin luqadda Ingiriiska iyo inaad shaqo ka heshay wadanka kambaniyada shirkadaha organisationada iyo ururada ka jira wadanka inaad mid kamid ah shaqo ka heshay oo ku soo saareen wax la yiraahdo job offer haddaba job offer waxa uu yahay meesha laga codsanayo ama website-ka laga gelayo systemka la marayo iyo dhammaan processka oo dhameystiran waxa si faahfaahsan u soo jeedin doona Maxamed Tokaale oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Kanada isla markaana aqoon iyo information dheeraad ah u leh immigration-ka iyo barnaamijyada ka hadlayno haddaba daawadayaal waxaan ka codsanayaa ugu horreyn inaad channelka subscribe saartaan like saartaan sina share gareysaan ugu yaraan hal qof aad la sii wadaagtaan si aad uga faa'iidaan barnaamijyada mawduucyada aan kusoo gudbino halkan annagana ay faa'iido noogu noqoto iyo horumar ku soo dhawaada walaalkeen Tokaale oo si faahfaahsan inoo soo jeedin doona بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كان هو برنامج لوgu talagalay shaqaalaha xirfadda aan lahayn isla markaana dadka ka shaqeyn kara beeraha khudaarta kala duwan maaragtay guri kara ayaa waxa loogu talagalay in ay si fudud wadanka Canada ku yimaadaan iyagoo aan wax khibrada iyo wax aqoon aan toona midna looga baahnayn oo aan lagu xidhin website-ka dowladda Canada weeye website-kani shaqadan waxaa la yiraahdaa harvesting laborers baa la yiraahdaa waxa weeye waxay gurayaan khudaarta kala duwan saad u jeedin listiga haddaan ku dhufto waxa weeye waxa ku soo baxaya dhammaan shaqooyinka iyo maaragtay beeraha laga shaqeynayo waxaasoo listigaas waxaasoo titles oo shaqooyina ayaa loo baahan yahay marka run ahaantii waa shaqo dad badan loogu baahan yahay si fududna maaragtay wadanka Canada loogu iman karo oo loogu talagalay dadka bilaa xirfadda in ay beeraha ka shaqeeyaan marka shuruudu waxa weeye hal employment requirements wax laga baahan yahay there are no specific education or training requirements macnaheedu waxa weeye wax aqoona iyo wax maaragtay tababara iyo khibrada mid toona lagama baahna balse halkan waxaa lagu leeyahay progression other workers position is possible with experience haddii aad hadda koor ka soo shaqeysay beeraha iyo waxyaalahana waaba position ka sareeya ayaa maaragtay lagu geynayaa marka fursaddan waa fursad qaali ah waxaan ugu talagalnay dadku inay ka faa'iideystaan hadda programkani waxa weeye dowladda gobolka Ontario ayaa laga bilaabay maadaama beeraha iyo maaragtay xagga khudaarta ay gobolkaas aad ugu badan yahay marka talaabada ugu horeysa qaadaysid waxa weeye lagaga baahan yahay laba shuruudood baa u muhiimsan labada shuruudood waxa weeye talaabada ugu horeysa Englishka ayaad maaragtay level 4 baa lagaga baahan yahay luqadda oo ah halka ugu hooseysa oo loogu talagalay qofka marka waxa weeye waa basic language skills weeye waa waxay su'aalaha la weydiinaya inaad ka soo jawaabi kartid iyo maaragtay qofkii basic communication skills weeye marka halkan Google-ka ayaa tagaysaa English test markaad Canada ku qortid waxaad ku dhufanaysaa IELTS Canada immigration oo loogu talagalay dadka wadankan imanaya maaragtay imtixaanka ay ka galaan website-kan kadib book a test baad leedahay find test location markaad tiraadid intaas ku soo baxaya dhinaca midigta ma taabanaysid waxa loogu talagalay qaybaha kale maaragtay kala duwan laakiin kana adigu taabanaysaa midda kale qaybtan waa UK weeye xaggana waa Canada qaybtan markaad taabatid halkan khaanadan ku soo saaraya khaanadan wadankaaga ayaad joogtid baad ku dhufanaysaa marka anaka wadanka ugu dhow Soomaaliya waa Ethiopia
Ethiopia aad ku dhufanaysaa, find location baad leedahay. markaad intaa tiraadid waxa kusoo baxaysa khaanadaan. wuxuu kuu sheegayaa marka British Council Addis Ababa ku taala, safaaradda waxay ku taalaa Ingiriisku ay ku leeyihiin waddanka Ethiopia ee Addis Ababa ku taala. marka waxaad ku dhufanaysaa book now baad leedahay. markaad ku dhufatid halkan uu ku keenayaa register for a paper based test baad leedahay. intaa markaad tiraadid website-koodii marka British Council baa kusoo baxaya. kadib khaanadan waa muhiim waana iska egtid. halkan waxaad ku dhufanaysaa khaanadan markaad ku dhufatid Addis Ababa ku dhufanaysaa. tusaale ahaan baan idin tusayaa qofku meesha waddan kasta uu joogo ayuu ka buuxbuuxsan karaa. marka academic kuma dhufanaysa. academic waa waxbarashada sare iyo jaamacadaha markaad doonaysid imtixaanka inaad ka English ahaankeeda aad geshid ood ka qaadatid. laakiin general training baad ku dhufanaysaa oo loogu talagalay dadka shaqaalaha iyo xirfadda kala duwan ay ku yimaadaan. marka waxa weeye upcoming dateska halkan aad ku dhufanaysaa. marka halkan wuxuu kuu sheegayaa waxyaalaha lagaga baahan yahay 1 ilaa 6 qodob ayaa lagaga baahan inaad buuxbuuxisid. kadibna halkan aad ku dhufanaysaa view all the dates in Ethiopia. dateku kuu soo saaraya marka halka aad ku dhufatid. marka waa kan Ethiopia waddankii Addis Ababa waxaa halkaa ku qoran any city. kadibna imtixaanka ugu horeeya November ayuu bilaabanaya ilaa February inta u dhaxaysa. marka waxa weeye waad geli kartiin halkaas saasaad u booking garaysanaysaa. waddanka aad joogtid ayay ku xiran tahay. marka waxa weeye waa caalamka oo dhan baa loogu talagalay. marka tallaabada aad ka timaadid kadib waxaad imanaysaa tallaabadaas waa tallaabada koowaad. tallaabada labaad ee qaadaysaa waxa weeye waa inaad heshid shaqo job offer. waana si fudud ayaad ku helaysaa shaqada run ahaantii maadaama ay tahay shaqadani shaqo loo baahan yahay oo maaragtay dadka shaqaalaha aada loogu baahan yahay oo dadka waddankan u dhashay iyo oo aanay ka shaqeynin shaqooyinkan. isla markaana dadka marka kombaniyadu haddaad la soo xiriirto isla markaaba way ku shaqaalaysiinayaan. taa marka hore tallaabada labaad waxaad qaadaysaa marka shuruudani tani shaqaha helistu waa shuruudda labaad. waxaad sameynaysaa indeed.ca ayaad ku dhufanaysaa .ca markaad indeed www.indeed.ca markaad ku dhufatid page-kana kuu soo baxaya. page-kan markuu kuu soo baxo halkan waxaad ku qoraysaa shaqada fruit picker baad leedahay oo macnaheedu tahay dadka khudaarta gura. kadib gobolka waa gobolkan inaad iska saxdid. Ontario baad leedahay then find jobs baad leedahay. marka already waan sii diyaariyey waxaana shaqooyin ayuu soo saaray. marka waxa weeye halkan waxaad ku arkaysaa picker fruit or vegetable khudaarta dadka gura. waxa weeye gobolku wuxuu ku yaalaa Strathroy Ontario. marka waxa weeye halkan apple picker dadka tufaaxa ka gura geedaha. halkan Samcoy Ontario. marka waa tuulooyinka ugu dhow magaalada Toronto. waxa weeye waa soconaysaa listiga. marka shaqada aad doonaysid ayaad ku dhufanaysid. iminka tan oo kale waxaad leedahay tiraadid apple picker baad ku dhufanaysaa wuxuu kuu soo saarayaa shaqada. waa tan halkan kugu soo saaray. marka wuxuu kuu sheegayaa shaqada description-keeda iyo weight-ka waxa lagaga baahan yahay 23 kilogram inaad qaadi kartid oo u dhiganta 50 pound. marka waxa weeye waxa laga gurayaa waa orchard fruit specific skillska waxba loo baahan yahay xirfad gaara. waxa weeye big raw orchard crops inaad ka gurtid line-kaas kadib line-ka kale aad u gudubtid. marka halkan wuxuu kuu sheegayaa environment sida loo shaqeynayo waxa weeye waa outdoor
waa dibadda, marka waa inaad sometimes waa qabow waddankani oo winterka, summerkana waa kulayl, marka waxaasoo dhan inaad diyaar u tahay baa loo baahan yahay oo aad maaragtay qof u diyaarsan aad tahay. laakiin waxa weeye shaqadan faa'iidada ay leedahay waxa weeye 4 sano 3 sano markaad ka shaqaysid deganaanshaha waddankan aad helaysaa, markaad deganaanshaha aad heshidna de waa iskaga tegaysaa. marka waa inaad laakiin aad companiga iska iibisid, sidaa iskaga iibin karaysid ood warqad soo qortid oo tirahdid haddaan doono 5 sanaan kula shaqaynayaa, si macnaha uu ku shaqaalaysiiyo uu kaaga helo. waxaa lagaaga baahan yahay CV ama resume, kolba taad u taqaanid af Soomaali, taariikh nololeedkaaga oo iskuulkaagii iyo waxbarashadaadii iyo shaqooyinkaagii aad soo qortay inaad usoo dirtid. marka waxa haddii aanad lahayn maaragtay account waa inaad samaysatid. marka saasaad u raadinaysaa. tallaabadana waa tallaabada labaad, waana shuruudda labaad ee ugu muhiimsan. marka waxa weeye markaad shaqadan offer aad heshid ayaad maaragtay tallaabo saddexaad baa jirta waan tusi doonaa haddii aan la idmo. laakiin waxa weeye qofka waxa looga baahan yahay marka hore inuu shaqada job offerka helo, kombanigii la xiriiro. waxaanan hubaa inay maaragtay dadku kombaniyadu iyo shirkaduhu ay markaaba qofkii shaqaalaysiinayaan. laakiin adaa lagaaga baahan yahay inaad sharaxdid oo maaragtay khibrad lagagama baahna, laakiin waxaad ka sheekeynaysaa taariikh nololeedkaagii, iskuulkaagii iyo waxbarashadaadii. warqad cover letter la yirahdana waad soo raacinaysaa, waad ood leedahay waan qof shaqo fiican baan ahay oo maaragtay hard worker baan ahay, isira xayisiinaysid moogtahay, iska gedaysid qofkii. markaana haddaad doontid 4 sano waan kula joogayaa, muddo badan baad leedahay. marka waxa weeye shaqadu waa kuwaas shaqooyinkoodka doonto ayaad dooranaysaa. listigaas way badan yihiin, marka adiga iyo waxay kugu xiran tahay dadaalkaaga iyo sidaad maaragtay aad dadkii aad ula soo xiriiri kartid. tallaabada saddexaad ayaan u gudbi doonaa haddii aad la idmo, la socda. saddexaad waxa weeye waxaad tegaysaa dowladda goboleedka Ontario ayaad website-kooda gelaysaa, weliba khaasatan waxaad gelaysaa Ontario Immigrant Nominee Program oo ah program waddanka Canada gobolada kala duwan ay leeyihiin oo loogu talagalay dadka inay goboladooda ay ku keenaan dadka ay doonayaan. marka maadaama barnaamijkan uu yahay gobolka laga shaqaalaysiinaya dadka gobolka Ontario, waxaa maaragtay khasab ah inaad soo martid barnaamijka loo yaqaano Ontario Nominee Program. website-kooga ayaad ku dhufanaysaa. hadda waxaad gelaysaa markaad tallaabadii koowaad luuqadda iska soo saxday, tii labaadna aad maaragtay shaqadii offerkii aad heshay, kumbaniga uu kuu soo diro job offer letter, ayaad waxaad imanaysaa website-kan. kadib waxaad maaragtay leedahay employer job offer baad ku dhufanaysaa demand scale. marka waa inaad registraysid halkan. marka imika waa dowladdii fiisihii baad dalbanaysaa iyo maaragtay wixii aad ku iman lahayd waddanka Canada. employer job offer baad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid applicationka ayuu kuu soo saarayaa, tallaabooyinkan ayaad raacaysaa. marka waxa weeye inaad iska hubisid baa loo baahan yahay waxyaalaha uu kaaga baahan yahay. job offerka requirementigeeda waa inay shaqadu ahaato full time oo maaragtay isla markaana permanent oo waxa weeye waa inay ku siinayaan kombaniyada maaragtay shaqaalaysiinaya in beerahooga looga shaqeeyo. marka hoos baad u daadegaysaa. hoos markaad u daadegtid all the way down, submit application baad leedahay. applicationka halkan aad ku dhufanaysaa applicationka. marka waxaa loo baahan yahay pagekan uu kuu soo saaraya. pagekan markuu kuu soo saaro dabcan hadda ka hor isma register-gareyn, marka waxa weeye waa inaad register-garaysid, qof cusub baa tahay. halkan aad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid continue baad leedahay. continue markaad tirahdid wuxuu kuu soo saarayaa marka pagekan kale kuu soo saarayaa.
pagekani waxa weeye dhinacan kan ugu horeeya waa dadkii is-registereeyay hadda ka hor markaad doonaya inay applicationkooda dib u furtaan. Marka kan labaad weeye new applicant baad ku dhufanaysaa. new applicant markaad ku dhufatid waxaa kusoo baxaya maaragtay marka pagekana kusoo baxaya. waxaad ku dhufanaysaa halkana job offerka ayaad markaad ku dhufatid kanaad ku dhufanaysaa. ka markaad ku dhufatid employment job offer markaad ku dhufatid ayaa waxaad yes baa kusoo baxaysaa. marka waxa weeye yes baad ku dhufanaysaa. kadib halkan aad kusoo baxaysaa. halkan marka waa inaad buuxisid applicationka. magaca waxaad ku qoraysaa halkan magaca awowgaa baad ku qoraysaa. halkanna magacaaga hore ayaad ku qoraysaa. markaad ku qortid halkan waxaad ku qoraysaa dhalashadaada waqtigii aad dhalatay. intaa markaad ku qortid next baad leedahay iyo maaragtay tallaabooyinka kale loo baahan yahay. marka waxa weeye run ahaantii tan waxay kuu fududeynaysaa inay maaragtay ay aad apply garaysatid fiisihii iyo wadankii wixii aad kusoo geli lahayd. kadibna deganaanshaha warqadaha deganaanshahana dowladdan gobolka Ontario ayaa kusoo diraysa. saasaad markaa ku buuxbuuxsanaysaa. marka processka iyo tallaabooyinka ayaad raacaysaa. marka waxa weeye laga faa'iidaysto fursaddan haddii alla idmo.